mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa xarunta golaha shacabka ku yeeshay kulankoodii ugu dambeeyay ee kala fadhiga koowaad mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka Soomaaliya kulankan uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyaha ayaa soo bandhigay laba xubnood oo u magacaabay ku-xigeenada habdhowraha golaha shacabka isla markaana xildhibaanada golaha shacabkuna ay gacanta ugu codeeyeen marka waxaan rabaa shantii qofood oo guuleystay magacooda isku xiran ay idin sheego Maxamed Hayl Ahmed Ali Yusuf Ali Hosh Hussein Ido Abdullahi Abukur Haji Abdullahi Arab Maxamed Yusuf Hassan Walid shantaas qofood waxay ku guuleysteen tartankii maanta waxay inoo yihiin guddigii golaha shacabka matali lahaa guddiga dastuurka dib u eegista dastuurka mudane albadweyn maanta markaan kala fadhiga koowaad xirno xildhibaanada waxay galayaan fasax muddo 2 bilood ah si waafaqsan qodobka 21aad farqadiisa 3aad ee xoraasadka golaha shacabka muddadaas ay xildhibaanada fasax ku jiraan xildhibaan walba waxa waajib ka saaran yahay in uu deegaan doorashadiisa dib ugu laabto oo ka soo diyaariyo warbixin maadaama aanu ognahay in ay jiraan arrimo badan oo hortabad u leh deegaan walba ugu dambeyntii maadaama aad soo qabateen shaqooyin adag waxaan idin rajaynayaa fasax wanaagsan oo aad ku soo nasataan xildhibaanada sharafta leh ee kala fadhigeeni koowaad ee golaha shacabka waa inoo xiran yahay aad iyo aad u mahadsantihiin ilaahay waxaan ka barinaynaa in ilaahay dhibaatada naga qaado anagoo nabad isku soo noqono oo maaragtay ummadda shaqo wanaagsan qabano aad iyo aad u mahadsantihiin.